sababtee ay raggu bidaarta ugu gashaa halka hore ee foodda iyo weliba dhakada dhexe madaxa? halka dhexe dhakadaadu ma u dhaldhalaashaa sida kubadda loo yaqaano boojada ama bowling ball? waxaa la sheegaa in arrintaasi ay sabab u tahay in qofka labka ah ay ku badan yihiin hormoonisyada galmada keena, kadibna cadaadis ka dhasha arrimahaasi hormooniska ay timaha qofka kaga haadaan. in qofka ragga ah ay gasho bidaar ma ahan wax lala yaabo, da' weliba uu jiro xitaa haddii uu 20 sano ka yar yahay. bidaartu waxaa sababa waxyaabo badan aan halkan ku soo koobi karin, laakiin inta badan waa wax hiddo ah ama farac ah oo qofka uu ka dhaxlo waalidkii ama awoowayaashii hore. sababaha ay timaha kaga haadaan qofka xagga hore ee madaxiisa ee loo yaqaano dhafoorka hore iyo dhakada dhexe tinta waxaa loo sababeeyaa inay yihiin hidde ama farac, halka heerka ugu sarreeya ee qofka timaha ay kaga haadaan lagu sababeeyo in qofkaasi ay ku badan yihiin hormooniska loo yaqaano dihydrotestosterone oo marka la soo gaabiyo loo yaqaano DHT, middaasi oo qofka ku keentaa inuu dareemo ama ay ku badan yihiin rabitaanka galmada. aragtiyadii ugu badnaa ee wakhtigii ugu dambeeyey la soo jeediyey ayaa sheegaya in xaaladda uu qofka timaha ku waayo ay bilaabato inta uu ku jiro qaangaarnimada, sidaasi oo kale markii ay koriisimo ku timaado qolfoofta madaxa ama gugumada madaxiisa iyo murqaha wejiga qofka. sidaasi oo kale xitaa markii ay kor u kacaan dareemayaasha qofka, gaar ahaan markii uu doonayo inuu sameeyo xaalad uu nafis ku qaadan karo, waxaa sare u kaca hormooniska loo yaqaano DHT oo ku badan qofka madaxiisa. inta badan dihydrotestosteronka waxay si wada jir ah ula shaqeeyaan unugyada jirka qofka, iyaga oo hakiya dhiiggii iyo nafaqadii gaari lahayd qaybta sare ee madaxa, gaar ahaan duleelada ay tinta ka soo baxdo. intaasi kadib halkii ay tinta ka soo bixi lahaayeen ayaa noqdaa kuwo aad u yaryar oo ugu dambayntii qarsooma, halka timaha dhinacyada qofka kaga yaalla ay baaqi ku sii ahaadaan qofka iyagoo aanan wax isbeddel ah ku dhicin. si weliba ha ahaatee cilmi-baaristan ayaa ah mid horudhac ah, qaar badan oo dhakhaatiirta ayaa sidaasi oo kale rumaysan in hormooniska DHT ay sidaasi oo kale qayb weyn ka qaadato in qofka timaha ay ku bataan xilliga uu qaangaarka yahay iyo weliba xilliga uu da'da yahay. waxayse sheegaan khubaradaasi in qofka timaha ay ku badan yihiin ama qofka bidaarta leh uu kaga dareen badan yahay marka la joogo xagga rabitaanka galmada qofka kale aan timaha badan ku lahayn jirkoo idil, gaar ahaan feeraha iyo dhabarka dambe iyo gacmahaba.